howlgalkan ayaa lagu soo qabtay 5 bambada gacanta 2 bistoolad iyo dukumiinti ay qoreen kooxda al-shabaab iyo loox ruux oo midahaween tahay iyadoo lagu soo bandhigay saldhigga degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir waxaana kiiskooda lagu wareejiyay ciidamada CID-da oo halkaasi lagu sameyn doono baaritaano dheeraad ah kooxda soo qabtay ayaa qirtay inay ka tirsan yihiin kooxda argagixisada al-shabaab gudoomiyaha degmada Yaaqshiid Axmed Maxamed Xasan Geedo ayaa sheegay in door weyn ay ka qaateen bulshada degmada howlgalka nabadiidka lagu soo qabtay dhaqaaqadii ku soo tuuran ay shacabka degmadu ay qabteen ilaahay noo guuleysiyay kabacdina ay la wareegeen ciidamada booliiska ee degmada Yaaqshiid iyo maamulka degmada aan shaqaynay dhaqaaqadiina la soo qabtay la keenay laguna raadiyay wixii kale mataqaana muxuu ahaa ay la shaqaynayay ilaahay wuxuu noo guuleeyay maanta howlgalkii la sameeyay ee booliiska sameeyeen degmada Yaaqshiid iyo maamulka degmada dhamaantoodba ay ku guuleysteen inay ku soo qabtaan hubkan aad u jeedo ee hortaada yaallo 2 bistooladood iyo 5 bambo mikrofoonka dadka lagu wacyigelinayay laptopkaas dukumiintiyo lagu soo xukumay meesha la yiraahdo jirib lagu soo xukumay gudoomiye maanta saldhigga Yaaqshiid aan aad iyo aad uga mataqaana muxuu ahaa uga maadcelinayaa taliyaha qaybta iyo taliyaha booliiska iyo dhammaan maamulka degmada oo hawshaas wada qabtay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax ayaa sheegay in loo baahan yahay dadka kireeya guryaha iyo kuwa ganacsatada inay waajib ku tahay hubinta dadka ay guryaha ka kireynayaan taas oo qayb ka ah sugidda amniga shacabka waxaan ka codsanaynaa dadka degmada degan ama waaxda degan ama laanta qof walba guriga uu degan yahay inuu ogaado dadka dariska la ah iyo dadka guryaha kireynaya waxaan xataa soo qabanay dadkii soo ka kireeyay guriyihii aan hubkan ka soo saaray marka cid walba mas'uuliyadda waa geli doontaa ma noqon doonto qofka la qabto kaliya ma noqon doonto 10 qof oo dambe ay yeelan doontaa qofka guriga ka kireeyay kii guriga lahaa kii dariska la ahaa dukaankii wax uu ka iibsanay marka waxaan ka codsanaynaa cid walba inay mas'uuliyad iska saarto Cabduqaadir Ali Axmed warbaahinta qaranka Muqdisho